nabadda wadayaal ku soo dhawaada page-kayga Nimco Cumar Xuseen maanta waxa halkayna la fadhiya agaasimaha waaxda ansaarta iyo dalxiiska ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland ayaan la Cabdiraxmaan Ibraahin oo xubin muhiim ah ee shaqooyinkiisa iyo waayihiisana baraha bulshada iyo guud ahaan aad aragtaan had iyo jeer maanta Hargeysa aan ku kulanay page-kayga marti ayuu ku yahay soo dhawaayaan le dhawahay walaal Nimco aan ku faraxsanahay in page-kaaga maanta aad u caysunto diiwaana ku bogaadinaya shaqada muhiimka ah oo hayso bulshada arrimaha bulshadana aan ku bogaadinaya dhinac walba ama sport ha noqoto ama xagga dawladda ha noqoto ama xagga arrimaha bulshada dhinac walba ku bogaadinaya dadku inta badan ayaan loo marka dalxiiska iyo ansaarta iyo waxyaabaha laga sheekeynayo dadku ma fahansanaa goobo lagu dalxiiso iyo meelahaas oo la isu sawirin bay malaha dadku moodayaan bal waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan halka ay marayso ama waxyaabaha ay faa'iidada u leedahay marka laga hadlayo ansaarta iyo dalxiiska dalahaan goobaha dalxiiska ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo bilaabmeen taariikh ahaan markii dalka la dhisay taariikh ahaan way ka horeysay horta intan 91kii iyo waa wax Ilaahay nagu abuuray oo qarniyo ka hor ummadeenu ku noolayd abka ay ku noolayd dhulkeega laakiin xilligii wasaaradda dalxiiska la bilaabay xilligii cigaal oo daahir yaala xukuumadda daahir yaala mar walbo ma aragtay Cabdiraxmaan Tuur iyo cigaal iyo xilli walbo wasaaradda ama goona laga dhigi jiray wasaaradda gooniyo dalxiisa dalxiisku waa noocyo kala duwan wuxuu ka bilaabmaa taariikhi iyo meelo natural oo Ilaahay ku uumay goobahaasna waxa kamida ilaa goobo badan oo aan cayimi karo hadhowna cidii warbixin kale u baahan oo faahfaahsanna aan buugagta iyo website-ka wasaaradda iyo ay ka akhrisan karaan ama tixraaci karaan laakiin haddii aan anigu ahaan taariikh ahaan iyo xogtaas oo si rasmi ah nagu soo gudbiyo mar walbo wasiirka dalxiiska ama wasaaradda lagu daro ama la magacaabo xukuumad walba meel bay soo gaarsiin jirtay goobaha dalxiiska ajaanibkii research ka qoran ka bilaabi doona taariikhda 166 goobood dad badan oo ajaanib oo research ah ayaa juhdi badan geliyay oo 2002gii xilligii la baaray Lascale oo xilliga team ajaanib oo Faransiisa ayaa baaray dadkeeno dad taariikh iyo bartay baa jira oo ama dad taariikhda haya oo abka ka soo dhaxlay oo dad loo kala oo dadkeena reer Somaliland dadkaasna waxay hageen dadkii researchadii adduunka noo yimaanay inay goobaha baaraan ama warbixin ka diyaariyaan ama ha noqotaan warbixin adduunkana reference iyo waxa jira research badan oo la sameeyo Somaliland waxay ku guuleysatay in dad badan oo ajaanib ay yimaadaan oo Faransiis ha noqdaan Spanish ha noqdaan dad Ingiriis dad Mareykan intaba research badan baa laga qoray waxa laga qoro oo Amuud Abasa Farduus Ceergaabo Saylac oo taariikhi aad u weyn leh Lascale marka dadkaasi mar walba warbixinta ay ka qoraan ay research ka diyaareen waxa la wadaagaa website-ka adduunka wasaaradana kayd ahaan way keensataa oo intii xukuumadooda isa soo tareysay ama si u kala horeeyeenba documenti badan oo taariikh badan baa hadda xafiiska iyo wasaaraddu ay haysaa nacam siday u kala muhiimsan yihiin xukuumad walba wax meel bay soo gaarsiin jirtay meelaha dalxiiskana dadku ama ay tagi loo cayimay waxay ahayd xukuumadii kala dambeeyay inta ugu muhiimsan qofku markuu u baahdo inuu dalxiis tago waxyaalaha looga baahan yahay wasaaraddu maraya hadduu gobolka Awdal joogo gobolka Awdal wasaaradda ganacsiga dalxiisku maraya permit-ka loo jaraya goobtii u baahnaa ayuu tagayaa ama had noqoto saacadiin ama gobolka Sanaag hadduu tago qofkaas uu joogo inuu dalxiis tago Daala iyo Xiis iyo Maydh iyo maxaan ku rahaa goobahan badan gobol walba wuxuu leeyahay dhowr iyo 10 goobood oo waxa ay ku cayiman tahay dokumentiyada wasaaraddu ay duubtay iyo buugan dalxiiska ku cayimay gobol walba laakiin iyadoo faahfaahsan qofkii si uu fahmo goobaha dalxiiska muhiimadda ay leedahay waa dadku inay ku soo nastaan oo ku dalxiis tagaan oo goobahan cayimane ugu muhiimsan quruxda badan leh ama goobahan rag artist-ka taariikhiga inuu qofku hadduu tagayo wuxuu raacayaa wasaaraddu tagaya warqad buu soo goosanaya warqad la'aanta qofku ma gali karo goobaha dalxiiska wuxuu loo gali karin shaqaalaha jooga oo weydiinaya permit-ka
dadkan ajaanibka ama research ka soo baaraya wasaaradda u ogolaata ama soo casuunta ayaa qofku ku gali karaa marka haddii dadkeenu goobaha markay tegayaan taariikhday lahayd waa taariikh aad u guun weyn oo maanta kama bogan karno haddaan islaaho xog badan ka bixi qofkii wuxuu ka bogan karaa researchada isagoo akhrista laakiin waxaan usoo koobi doonaa qofku markuu goob tago waxbay caan ku tahay iminka kale tusaale ahaan lascale qofku markuu tago waxay caan ku tahay rock artistka inay qarni magacan lascale muxuu yimid las waa meeshan biyuhu maraan geela ka soo biyaha usoo doonan jiray meelahan biyo xidheenada ama laaska waa meelaha biyuhu isku yimaadaan marka meel walba waxbay caan ku tahay lascale waxay caan ku tahay goobaha rock artistka meelaha taariikhiga qofku ma aragtay markuu tago rock artist wuxuu arkayaa sawiro ay ku sawiran yihiin geel lo ma aragtay dadkaasi waxay ka turjumaysaa waxyaalahay dhaqan jireen iminka kale markuu qofku qiblateenka maqlo ama saylac uu tago de wuxuu arkayaa meelo taariikhiya oo aad ugu weyn oo ma aragtay laba qiblood bay lahayd qaybtan qiblateenka saylac waxa loogu bixiyay qiblateenka dee markii diinta ka hor oo xaggii qudus loo jeedin jiray iyo markii diinta kadib dee xagga maka hadda loo jeesto marka labada qibladoodna dee wax taariikhdeena kooban aan kusoo koobi karna maaha ta ugu muhiimsan oo goobaheena badan ee quruxda badan leh dadku inay ku dalxiisaan oo ku dhiirigelina wasaaraduna wax badan ay ka qabatay xukuumadii kala dambeeyey goobo badan oo ajaanibku markuu imaado goobo badan oo la helay sida de abasa ool camuud meelo badan oo taariikhiya goobahaasna waxyaalaha amiisankii dadku ajaanibku ama dadka qurba joogka ama dadkeena localka ay kala kulmaan waa goobo ka baxsan oo hawo fiican leh oo biyo nadiifa leh oo haddii qofku hilib ku qasho ama injawi ku soo qaato goobahaas dee wax wada qurux badan uu naftiisu ku nasanayo maadaama magaaladu qofku markuu ka baxo dalxiis tago marka magacan dalxiis markuu qofku maqlo waa inuu qofku ka baxa bay'adan uu joogay ee buuqa badan leh goobaha markuu tago inuu ku soo nasto hawo farasha helo hawo nadiif uu helo uu injawi ku soo qaato uu goobahanna hadduu sacaadiin maanta tagayo qofku inuu doon raaco uu badda dhex maro sacaadiinna waxay leedahay meel badii iyo berigiiyo iska galay ceebaad markuu qofku tago meeshiyo bada iyo meeshiyo saxaraa sida saxaradoo kale marka qof walba oo u baahan inuu warbixin rasmiya uu goobaha taariikhiga uu ka helo ama de wasaaraddu la soo xiriiri karaa beeshashka wasaaradda marka ta ugu muhiimsan ajaanibku inoo qabteen waxaa ka mid a research badan oo goobaha si aan loo cayimay iminka goobahan aan cayimay waa 160 goobood oo mid walba magac leedahay marka qofkii focuska saari karaa inuu researchka ama meelaha warbixintooda magaalo walba maxay caan ku tahay iminka Booramo oo kale maxay caan ku tahay Booramo waxay caan ku tahay waa meel greena waa meel maxaan ku idhahaa taariikh badan leh waa meeshii nabadda waa meeshii aqoonta marka magaalo walba eergaabo kale waa meel maxaan ku dhahaa qurux badan oo goobo badan oo ka mid a daale iyo ay la mactahay marka goob walba oo taariikhiya iyo goob walba oo dalxiisa warbixintoodu qofku inuu kama goyoon karo meel walbana haddaan idhaaho focuska saar dee waktiga dheeraanaya hawl walbana waxay u baahan tahay in warbixin guud iyo warbixin gaaraba laga bixiyo waxaan kusoo gabagabeynayaa meelahan goobahan muhiimkaa dadku inay u dalxiis tagaan inay nadaafadooda ilaaliyaan maayir walba iyo maxaan ku dhaha barsaab walbaba uu kala shaqeeyo gobolkiisa suu qurux badnaan lahaa oo goobaha taariikhiga iyo goobaha dalxiiskaba wasaaradduna waxay u fududeynaysaa inay cid walba oo dalxiis tegaysa inay sharciga raacdo si aynan shaqaalaha goobtaas iyo taariikhda meelaha inaynan qof walba uu focuska saaro goobaha dalxiiska inuu ku nasto faa'iidaday u leedahay inay dadku dalxiisaanna waxaa ka mid a in qofku ku soo nasto uu injoy ku soo qaato goobo badan uu dooran karana marka buugagta iyo website-ka wasaaraddu akhristo ama Twitter-ka uu ka dooran karo inuu goobta tago iyo sidii inta kiiloomitir tahay inta wax walba warbixina qofku inuu focuska saaro waa muhiim goobahan dalxiiskana waxaan rajeynayaa inaan kubcino oo dadku markay maanta tagaan nimco haddii aad ku talagashay inaad goobtaa tagtid warbixinta aad ka soo duubto
taariikhdeedii iyo buuggeygii inaan ku siino oon ku hagno oo waxyaalaha wariyaasha iyo dadka miidiyaha isticmaala aan ku dhiirigelinayno wasaaradduna ay fudaydinayso maadaama iyagu ay promote samaynayaan wax badan oo fudaydinaanu samayn doonaa waxyaalahan kusoo gebagabayna waxaa ka mid a wax walboo loo baahdo haddii warbixina dee documentiga wasaaradda waa kilibka waa la qaadan karaa buugga dalxiiska qofkii isagoo ma aragtay PDF ama website-ka wasaaradda ku dhex akhrisan karaa marka ciddii warbixin faahfaahsan u baahsan goobaha taariikhiga goobaha dalxiiskana dee lagu soo dhaweynaya shaqaalaha jooga oo goobu ku nasanayo goobaha dalxiiskana waxa laga qabtay meelo badan oo dadku ku nasto oo ma aragtay ku tukada salaada xamaamkii meelihii suuliyadii toiletkii meelihii lagu tukanayay qolalkii lagu nasanayay biyihii buu ka helayaa marka qofkii markuu soo dalxiiso meeshii uu ku nasanayay baa ugu diyaara goobahan aan cayimay hore soo sheegay waxgaag faa'iidooyin intee leeg ayay u leedahay marka dalxiiska laga hadlayo iyo ansaarahan qadiimiga dhaqaalaha iyo guud ahaan Soomaaliland waa su'aal aad u muhiim ah dhaqaalaha Soomaaliland de kobac weyn imka adduunka maadaama de goobo badan dhalinyar baan nahay meelo badan ama qofku miidiyaha kala socdo ama habadtagaba dalalka Turkiga Masar Ethiopia agteena Kenya de goobo waxay leedahay dalxiis de goobahaasi dakhli badan baa soo xarooda innakana ajaanib badan baa inoo imaada oo dakhli badan baa inoo soo xarooda maanta haddii ay imaadaan bir walba waxay imaada ilaa intii de koofiga unbaa saamaysay laakiin intii ka horreysay intii ka dambeysay de dad badan oo ajaaniba oo waddan walba isku jira ayaa imaada oo dadkaasna dhaqaalay keenaan dhaqaalahan maaha intii de dawladdu ka qaada ama wasaaradda dalxiisku iyo ganacsigu ay ka qaada maaha maanta markuu qofka ajaanibka yimaado uu goosto warqadda permitka ee wasaaradda wuxuu gaadhi u kareysanayaa hotel buu degayaa cuntuu cunayaa wixii culturekii iibsanaya wixii dhaqanka aan u lahayn dheeshii barkintii waxyaalihii dhaqanka aan u lahayn buu iibsanaya maanta qofka keliya ati ajaanib ah ee waddanka yimaada waxa keliya tuu dee one day-ga keliya ata $1 buu gelinayaa dakhliga marka dakhli badan iyo dhaqaalo badan bay naga soo galaa dawladduna iyo xukuumadduna dee waa ilaah dhaqaalehee hadda focuska la saaray wasaaradduna awood ay saartay annaguna awoodaan saarnay marka waa muhiim in dhaqaalaha lasii kordhiyo oon dee annaguna goobaha u qurxino u hagaajino ma aragtay aan u qurxino marka mar walba waxa ugu muhiimsan in ma aragtay dadka ajaanibkana la soo dhaweeyo waddankeena imanaya in ma aragtay dadka dalxiisayaasha ama dadkeena localkaana aad bay u tagaan meelaha dalxiiska oo inuu qofkeena dadkeena qurbo joogta markay imaadaan ay arkaan maxaan ku dhaha goobaha quruxda badan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaala inay tagaan oo dakhli soo xalaan iyaga laftigooda sanad walba imanayaan samarka ha imaadaan ama xilli walba imanayaan marka ta ugu muhiimsan dakhli badan baa ka soo xarooda xagga imise goob dalxiisood ayay leedahay guud ahaan Soomaaliland sidoo kale maxaa qorshayaal idinka yaala in amaad xayndaab u samaysaan ama tayacdir u samaysaan guud ahaan xukuumadda iyo dawladda maxaa qorshe idinka yaala goobaha Soomaaliland ay ka kooban tahay waxa weyn 166 goobood oo dalxiiska iyo ansaarta isku jira meelaha taariikhiga goobahaas dawladdu waxay focus ka saartay inay dayactir ku samayso oo goob walba waxay u baahan tahay loo qabto dadku markay dalxiisaan waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan meel ay ku tukadaan meel ay salaad ku tukadaan ay ku nastaan oo xamaam meeshii ay markay dadku sharaabka cabaan ay nastaan ama shaaha cabaan meelii xamaamkeeda ay galiyeen oo gooni u kala samaysan qaybtii raggana gooni loo sameeyay qaybtii dumarkana gooni loo sameeyay marka dawladdu wax badan bay ka qabatay goob walba waxa ugu muhiimsan dadku markay tagaan goobaha waxay leeyihiin meelo haday wataan kafeegi ama cuntooyinkii meelo dhaskabino la hago marka shaqaalaha jooga aad u tababaran oo dadka u sheegaya inaanan meelaha rock artiska meelaha taariikhiga farshaxan ku soo waran yahay inaanan farta la taabsin karin in dadku madaka nadaafadda ilaaliyaan nacam dad badan oo shaqaalo aad u tababaran baa jooga goob walba
oo ma aragtay mar walba dhib ama hawl dadku markay tagaan way tirsan karaan laakiin waxaan ka hortagnay dowladdu ku dadaashay in dadkaas ay ku dadaalaan la tababaro dadka ajaanibkaana tour guide baa loo sameeyaa ama wasaaradda laga raaciyaa ama dadka goobtaas ayaa u sharaxa oo taariikhda iyo goobtani waxay ku caanamaashay iyo taariikhdeeda uga warrama markaa si ay dadku ay focuska u saaraan inay habi ku noqdaan dee dadka shaqaalihii goobta la tababaray baa iyo marka dowladdu wax badan bay ka qabatay goobo badan oo ilaa hadda 12 goobood ayaa dib u habeyn lagu sameeyey oo loo sameeyey dadku waxay u baahnayeen qofku marka maanta haddaad u baahan tahay inaad dalxiis tagto wixii aad niyadda ku haysay ma gaadhayno dee adduunka oo dee adduunkana horumaray aqoonsiga haysan laakiin inaku intii karaankeenna ah dee waa la dadaalay oo goobihii taariikhigii goobihii dalxiiskii waa la dayactiray goobo wadooyin loo sameeyey goobo dhismayaal casri loo sameeyey oo dadku ku nastaan biyayaal oo dadku ma aragtay haddaanan meesha goobta aynan inay ku nastaan oo biyihii ka helaan oo adeegii ay ka helaan dowladdu aad bay ugu dadaashay marka waxyaalahan isleeyahay dowladdu wax badan bay ka qabatay documenti baa laga duubay goobihii dalxiiska ee jamhuuriyadda Somaliland gobolladoo dhan 60 gobol tuulooyinka magaalooyinka magaalo walba iyo goob walba waxay caan ku lahayd ay taariikh ku lahayd ay hadday Seylac noqoto hadday Ceergaabo noqoto hadday noqoto Xiis hadday noqoto Taleex meelo badan oo jamhuuriyadda Somaliland taariikh ku lahayd documenti baa laga soo sameeyey oo wasaaradda website-keyga page-keyga Twitter-keyga inta buu ku jiraa buuggii dalxiiska qarankana waan sameynay oo qofku uma baahanayo tour guide ama dee guidelines goobuhu tagayo maanta iminka buugga marka lagu guddoonsiiyo dee goobihii aad u baahnayd oo dhan baad taariikhdeeda adigoo xog hayaa tegaysaa meesha marka dowladdu wax badan bay ka qabatay oo dadku awalkii hore markay dad inoo yimaadaan hadiid lama siin jiray oo madaxweynaha dee hadiidda guddoonsiiya oo berigii safarkii Mareykanka u qaatay wasiirku mar walba uu safar baxayo wadannada jaarkiina wadannada caalamka u tagayaan mar walba dadkeena qaranka cid walbo mas'uul ah hadiid u qaado weeyaan oo qaranka maanta hadiid dalxiiska qofku markuu yiraaho wadanka waxyaalaha dalxiiska caan ku tiin waa maxay buugga buu akhrisanaya qofkii aanan buuggaasi gaadhina documenti ka warbixinayo Soomaali iyo English ba lagu turjumay ayaa warbixinta qofka YouTube-ka website-ka wasaaradda page-ka wasaaradda Twitter-ka intaba uu kala soconaya waliba Visit Somaliland ma sameeyay Twitter-ka oo dadku ma aragtay xagga aad u la socdaan maadaama adduunka kolba loo gudbayo qayb muhiim ah Twitter-ka TikTok-ka Instagram-ka nacmeeyay adduunku ku kulmay ama dadka dhalinyartii ama dadka waaweyn nacam laga la soconayay qofku kala soconaya marka wasaaradda iyo dowladdu badda xukuumadda focus weyn bay saartay goobihii taariikhiga ansaarta qadiimiga in la dayactiro la daryeelo oo ma aragtay dalxiiska dadku si ay ugu farxaan oo meel nastaan oo joog fiican marka waxaan rajeynayaa inaad goobo badan tagto oo wasaaraddu ma aragtay ku fududeyso inaad warbixin ka soo samayso oo maadaama gobol walba u baahato eriyada iyo meelaha dalxiiska guideline-ka iyo buug iyo taariikhana markaad eegto aad akhrisato goobaha ku cajab geliya dowladdu way ku fududeyn karaysaa inaad documenti ka soo samayso dowladduna horey documenti badan uga samaysay oo aanad insha Allah kaana waad wixii wax qabadkii xukuumadda badanka dee anaku hadal ku jawaab meeyne waxa iyadoo documenti ama buuga ama fiidiyoya intaba waa nagala wasaaradda waa laga helaya iyo page-keyga iyo baraha bulshadaba waxaad dadku inta badan dalxiisaya goobaha way kala jeclaystaan siday doontaba ha u soo kala jeedatee goobaha ugu badan ee ajaanibta iyo dadka caadiga localka tagaya goobay aad u jecel yihiin waa goobahee inta goobadeedii soo sheegtay dalxiiska goobo horta aad bay u tiri badan yihiin oo inta cayimana aan ku sheegay 160 waxa weey 160 goobood waxa weeyaan waa goobihii sida rasmiga research looga sameeyay wadankeenu dadkii taariikhda hayay dadkii waaweyn ay ka qoreen iyo dadkii caalamka naga soo booqday researcheradu ay noo cayimeen meelaha ugu munaasabsan laakiin way ka badan yihiin way ka tiro badan yihiin ilaa 1000 goobood way gaarayaan laakiin meelaha hadda ay wasaaraddu dayactirtay gacanta ku hayso oo 160 goobood oo jamhuuriyadda Somaliland ka kooban dadku waxyaalaha xiiseeyaan
goobo badan baa jira Saacadiin oo kale oo dadku jasiirada Saacadiin ee gobolka Awdal ku yaala dad waxay xiiseeyaan meelahan mountainska buuraha sida Daalo kale gacan libaax oo kale dad waxay xiiseeyaan meelaha rock artistska meelaha taariikhiga ee farshaxan ku soo sida Laasgeel dhagax kuure dhagax nabi galay goobahan kale Abasa oo Amuud meelaha rock artistska ama guryahan magaalooyinkii dumay sida Farduus oo kale shaq ku taala gobolka Saaxil Siyaara ceel gardi meeshan saxaraha aadka u quruxda badan marka dadku waxay u baahan yihiin goobo badan oo waxa jira qof walba hadduu buur xiiseenayo goobo buura oo natural jira hadduu bad xiiseenayo iyo jasiirada jira hadduu rock artist waxyaalahan farshaxanka ama dibi ku soo reeyahay ama lo'da ama geelu ama xawayaanadan kale oo rock artist taariikhiga jira iyo goobo waxa dadku xiiseeyaan goobada ool sida qiblateenka oo kale ama sayrac marka tagto meelaha guryahan oolka oo qof walba waxa ugu baxdaa meel gooni marka qofka un ba kala dooran kara anigu haddii aan sidaha goobaha aan ugu jecelahay waxa kamid ah Saacadiin oo kale iyo gudmo biyacas xagan maxaan ku rahaa buurta Daalo gacan libaax goobahan noocaas aadka u quruxda badan leh iyo Laasgeel iyo Abasa meelahaas baan interest gareeyaa marka laakiin dadku qofku choice buu leeyahay hadduu sidaa meel bada tag batala loo tagi kara berbero tagi kara oo berbero taariikhiya xiis waxay aad u tagaan Laasgeel Saacadiin iyo Saylac xaqii ceergaabo Daalo iyo gacan libaax dadkeenu meelaha kooban ay aadka u tagaya dadka ajaanibki haddii aan u sii dhaadhaco dadku markay wadooyin fiican helaan meel walba dadku waxay xiiseen meesha yar dhowe wada fiican leh marka hadda meesha ugu tagitaanka badan waa Laasgeel oo Hargeysa 45 kilomitir bay jirtaa Dhubato iyo laga leexdaa meel dhow laamile ay dadku tagaan laakiin meelaha fogfogda meelo ka qurux badan baa jira Laasgeel iyo meelaha taariikhiga ugu dambeyn maxaa idin qorshaysan maxaa idin qorshe ah ka wasaaradahan iyo waliba qaybtaada waxa noo qorshaysan waxyaalo badan alxamdulillah horta wax badan way noo hirgaleen waxyaalo badan oo doonayna inaan book soo saarno oo noo hirgalay in document weyn la sameeyo goobaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dalxiiska dhan la soo duubo noo hirgaleen haddana waxaan rajaynayaa in GPRS iyo maabinkii iyo goobihii badnaa loo sameeyo dadku qofkii isagoon daro walba ka haysan gaarigiisa ku tagi karo oo ma aragtay maabinka uu hay karo inaan u sad garaayno taaba hadda noo qorshaysan iyo waxyaalo badan oo sida adduunka aan ula jaan qaadi lahayn oo wadanadan jaarkeena horta sida Ethiopia oo kale Kenya oo kale meelaha baarkii oo lagu lugeeyo quruxda badan in goobaha la hayndaabo xawayaan iyo dhir iyo wax badan lagu beero oo ma aragtay dadkuna xawayaan ka daawadaan oo la kaashano wasaaradda horumarinta deegaanka aan la kaashano marka wax badan baa noo qorshaysan oo ka mid tahay in goobihii dadku tagayeen xawayaankiina arkaan maxaan ku idhahaa sidan caalamka Masar oo kale markaad raacayso maxaan ku idhahaa awrka oo kale nacam qalab badan oo inaan soo xigno ayaan rajaynaynaa ugu dambeyn maxad bulshada fariin la wadaagaysaa waxaan bulshada fariin la wadaagayaa in dalkeena goobo badan oo taariikhi uu leeyahay inaan taariikhda barano inaan goobaha dalxiiskeena badanka dadkeena waxay aad u jecel yihiin inay fariistaan hoteeladan casriga ah ee wada muraayada laakiin waxa ka muhiimsan inuu qofku hawo soo qaato oo xagga neefiyada dhaylaha ku soo qasho oo maxaan ku idhahaa qof walba enjoy buu sameynaya qof xagga ma aragtay macal ardaydan loo saaro ardaydan quraanka dhigata iyo iskoolka dhigata inta rixlada ama meelaha goobahan taariikhiga loo saaro oo quraan ku soo subciyaan oo meesha ay joog fiican leh dadkii kale u baahanna inay tagaan oo qaraam ku soo tuntaan oo maxaan ku ku soo caweeyaan dab ku soo shitaan oo ma aragtay neef ku soo qashaan oo xagga xeebaha sida berberi iyo ay ma aragtay kalluun ku soo dubtaan marka dadku inay dhulkeena waa dhul aad u qaniya oo nimcad badan taalo marka kolbasaan uga faa'iideysano anuu badanka markaan meel tagayo meel yar oo ka baxsan magaalooyinka oo hawo fiican leh
oo meel qurux badana inaad ku yarnasato oo maskaxdaada markaad refresh soo siiso cid walba aan kula talina marka dadkeena waxaan ugu baaqayaa goobaha dalxiiska inay tagaan waxaan laakiin ka dardaarayaa qofku markuu meel dalxiisa tagayo dee gaadhigiisa cunti ku qaadanaya marka in dadka waxaan ka wacdigelinaynaa wariyaasha iyo dee adigii cid ay maqlaysaba aan ka codsanayaa dadka warbaahinta ama wariyaala ama warbaahinta aadka ugu jira inay dadka wacdigeliyaan in dhulkeena nadiifino oo ama dee magaalada ha jooga ama tuulaha u baxee inuunan caagad meel ku tuurin oo meelihii loogu talagalay markuu qofku goob dalxiisa tago meeshii loogu talagalay dhaska benki inuu ku rido uu meesha nadiifiyo uu ma aragtay qofkaasi ajarna ilaahay ka siinaya isagiina goobtii buu nadiifinaya marka nadaafaduna de waa qayb ka mid ah iimaanka marka in dadku saad u jeceshahay gurigaagu inuu ku nadiifsanaado goob walba tagaysa inaad bulshada waxaan ugu baaqaya inay goob walba tagayaan ay nadaafadda ku dadaalaan oo caagada ugu yare iyo xanjada uu qofku haysto inuu meeshii loogu talagalay ku rido marka taabana waa codsi bulshadana taaban ugu baaqaya aad baan ugu mahadnaqayaa page-ka walaashay Nimco waxaan leeyahay hore ugu soco cid walba ku xidhanna waxaan leeyahay in la dhiirigeliyo haweenkeena waliba way ku yirihiin xagga meediyaha ama warinimada waan bogaadinaya walaal dadaalka aad hayso arrimaha bulshadana focus ka saar si ma aragtay horumarka iyo ummaddu waxay ku horumartaa waa arrimaha bulshada in la caawiyo cidii mutadacwanimo u baahan cid walba u baahan in ma aragtay waan bogaadinaya walaashay wuxuu ahaa ayaan la Cabdiraxmaan Ibraahin agaasimaha waaxda ansaarta iyo dalxiiska ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland oo maanta marti ku ahaa page-kayga Nimco Cumar Xuseen oo halkan isku wareysanay magaalada Hargeysa waanu mahad celinayaa sida quruxda badan la uga soo qayb galay page-kayga kamaraduhu waa bi Maxamed Cabdullaahi Askar intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo aniga iyo agaasimahaba